excelku aanu wax badan ka duwanayn calculatorka. haddaba calculatorka waxaad ku qabsataa xisaabo fara badan isagoo ku fududeynaya isku darista, ku dhufashada, isku qaybinta iyo waxyaabo fara badan oo lamid ah. haddaba excelkana waa sidoo kale, laakiin waxyaabo fara badan ayuu ka dheeryahay calculatorka, iyadoo aad ku maamuli karto shirkad shaqaynaysa. haddaba sida halkan inooga muuqata shaashadda, ku dar iyo ka jar, ku dhufo, u qaybi, waa 4 shay ee ugu muhiimsan isticmaalka excel. haddaba equal baanan ka marmino, calaamadda labada xariiqana ayaa excel mar walba ku shaqeeya, iyadoo calaamadaas loo adeegsado in xisaabta halkaa dhigaysid mar walba aad gelisid si excelku ku aqoonsado xisaabta sida aad u doonaysid, in laysku dhufto, in laga kala jaro, in laysku daro iyo in la qaybiyo intaba. haddaba markaad isticmaashid calaamadda equal, aan matalo soo qaadano halkan, haddii aan ku qorno equal, waxaa excel i weydiinayaa equalka maadaama aan qoray inaan xushto column inaan xushto. columnkaas hadda waxa uu yahay B14 masalaba. haddii aan rabo columnkan inaan ku dhufto columnka xiga ee ku xiga, waa column number 2. haddaan rabo inaan isku dhufto ama kala jiro ama kala qaybiyo, waa inaan u sheegaa excel waxaan rabo. ma ku dhufo ayaan u baahanahay, ma u qaybi, ma ka jar, mase ku dar. masalada ugu fududaan soo qaadanay waxaan dhihi karnaa ku dar. calaamadda balaaska ayaa ka soo qaadanaysaa tablekan masalada. calaamadda balaaska markaad qortid kadib waxaa xigaya columnka aad ku dari rabto. waxay la mid tahay adigoo soo qaadanaya 5 ari adoo ku daraya 6 ari, iyadoo ay aad u fududahay, balse excelka isticmaalkiisa ayaa wuxuu u baahan yahay inaad excelka u tilmaamtid halka aad xisaabaadka isaga daraysid. columnka ku xiga oo la mid ah 6 ari ayaa wuxuu yahay C14, iyadoo columnka ugu horeeya uu ahaa B14 oo lagu daray C14. marka waxa ay la mid tahay baa halkan inoo laga baahan yahay. si aan ku helnana waxaan taabanaynaa enter marka waa 0, sababtoo waa xisaaba halkan ku qoran ma jiraan. marka masaladeenna aan aad u dhiraandhirino aan ku celino, waxaan halkan dhiganaynaa 5 ari. 5 ari waxaan ku dari rabnaa 5 kale oo ari. aad bay u fududahay, 10. masalada waxaan ka bilaabaynaa masalooyinka ugu fudud. halkan aan keensanaynaa si in excelka aan uga helno natiijooyinkeena, annagoo u tilmaamayna excel inaan u baahannahay equal. 5 ari ee halkan taala waxaan rabaa inaan ku daro 5 kale, balse intaanan taabanin ka hor waxaa laigaga baahan yahay inaad taabto calaamadda balasta. kadib waxaa xigaya inaad 5 kale ariga aad taabatay iyagana. markaad 5taas kale aad dhag faladha ku siisid, waxaa lagaaga baahan yahay inaad taabato enter. taas oo ay la micno tahay in natiijada aad u baahan tahay in halkaas lagaaga soo saaro. natiijadu excel siiyey waa 10, number 10. sababtana isweydiin ma lahaano, 5 ari haddii 5 ari loo geeyo waa 10. okay, bal aan u sheegno excelka inaan u baahannahay kala jaris. aad bay u fududahay. si aan kala jaris u helno, 10ka ayaan 2 mar double click ama 2 mar taabanaynaa. calaamadda balaaskii aan horey u gelinay ayaan tiraynaa inagoo backspace isticmaalayna buttonka back. balaaskii maadaama aan tirnay waxaan ku bedelanaynaa calaamadahan mid ka mid ah, ama u qaybi ama ku dhufo. ku dhufada waa shifti xidig, xidigtana waxay ku sawiran tahay number 8 korkiisa, ama minus. marka minus aan soo qaadano, minus aan halkaa gelino. waxaa la kala jarayaa marka 5 ari haddii laga jaro waa 0. wax meesha inoo yaala ma laha, kutubadan kala qaadano. marka halkan waxaa inoo yaala 5 ari, waxaanu ka jirnay 5 ari kale waa 0. wax inoo yaala ma laha. markaan isticmaalno calaamadda u qaybi inagoo 2 mar taabanayna 0dan oo halkan natiijo inooga ah. excelkan aan u sheegno excelka inaan u baahannahay inaan wax kala jarno. markaan delete jiray waxaan u baahanahay calaamadda u qaybi oo ah slash. marka website-ka ku qoraysid www. adiga badanaa waxaad u baahan tahay http marka laga soo bilaabo website-ka 2.// calaamadda slashka ayaa waxay tahay calaamadda u qaybi oo la mid ah excelka xagiisa. marka enter markaad taabato
wuxuu excel fahmayaa inaa u qaybinaysid 5 qofood 5 xabo oo kuna 5 qof haddii halkan taagan tahay 5 oo kun aad bay kugu fududahay runtii oo 5 qofkiiba inaad hal xabo siisid wax natiija halkaasaa ka sugaysid kalimaha waa number 1 intaa waxaa inoo xiga in excelkaan uga baahanahay inuu isku dhufto 5 lagu dhuftay marka 5 ari haddii 5 kale loo saariyo marka dhufashadeeda saarintii oo keliya marka aan iska tirtirno calaamadda slaashka halda oo aan ku bedelino shifty number 8 shiftiga calaamadan aan isticmaalayno haddaba xidigta aad u eg xidigta waa ku dhufasho macnaheeda shifty number 8 korkiisa ama nambarada geeska ee keyboardkaaga haddaad minus-ta kan ku xiga waa ku dhufo isku mid marka inta aad taabato natiijadii waa 25 halkan waxaan ku fahmi karnaa marka in basica excelka isticmaalkiisa ay muhiim u tahay sida calculatorka oo kale ku dar iyo ka jar iyo ku dhufo iyo qayb haddaba intaas waxaan filayaa haddii aad ku ceeshatid inaad aad u fahmi doontid adigoo soo booqanaya website-keena www.amartijara.com